إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد خطبتني هراء وحين كغسو هدليني الدعاء بريدي إلهي لبريدي وحن موقت بريدي إنه إلهي إنه أقبل سبحانه وتعالى سيدو بلن قاضي ادعوني أستجيب لكم البرية واردين أقبلين جمعنا إلى مركوين النقطة خطبة وحين كغوها من الشكر لله سبحانه بيدانكي بويده سويدارني لعقت اللي يبوهيني عركي اللي ايغي قوص الشدي انتي بوي صويا رادين ميلا بدن way ka baxeen meelo uu helay in badan meelana ma helin madarku inta kalena sida ilaahay uu shubun buu ugu shubi doonaa insha Allah waanaynu mahadnaqaynaa intuu nasiyay inta uu soo wadana waynu ka baryaynaa rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan uga jeednaa khudbadeena inaynu isku baraarujino miisaanka mahadnaqa ama shukrigu uu ku leeyahay diinteena iyo shariicadeena cid kale iska daa bani aadamku qofka aad macruuf u sameeyso macruuf qofka ku sameeya aad u mahadnaqi weydo uu kula yaabaa Soomaalidu markay dibadaha tageen ummadaha kale ee ajnabiga waxyaabaha ay kula yaabaan bay kamid tahay marka qofka macruuf loo sameeyo ee waad mahadsan tahay uu oran waayo dadku aad bay u sii eegaano way la yaabaan inagana dhaqankeenu iska yara reermiyigu ahaa qofka aan dhibaato kale iyo caqdad kale ku jirin ayaa adadkaantii la iskaga soo rabaayo qaat ayaa waxay keentaa inuu qofku oran waayo shukran ama waad mahadsantahay ilaa dadka qaarkood ay yiraahdeen luqadiina miyaanay ku jirin ereyga awaad mahadsantahay kuma jirto miyaa ama dadka qaarkood ba ay ka caroodaan bal bani aadamkii aan nicmadan iyo waxaan uu sameeyay xaqiiqanimo u lahayn ba sidaa uga carooday ilaahi boqorka ahaa ee fartan qaadada nicmadiisi ay dushaada ka muuqato maxaad u malaysa subhanahu wa ta'ala arkaan islaamka qaarkood ayay ka badan tahay daliilada ku soo aroray daliilada shukriga ka badan ila 8 daliil meelaha ayaa quraanka iyo xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam shukri ka waramaya konton aayadood iyo 5 xadiid aqwaasha culimaduna aad bay u farabaday waarkaan islaamka qaarkood baan intaas oo daliiliba ka waramayba idan halka waxaad ka arki karaysa miisaanka weyn ee mahadnaqa ilaahay uu leeyahay subhanahu ma wuxuu ilaahay tilmaamayaa inay wada socdaan iimaanka iyo mahadnaqa Allah wuxuu ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum balina idin cadaaba maxaan ka helayaa ku falaya hadii laba arrimood sameeynaysa hadaa rumaynaysa ina mahadnaqaysa waliba shukrigu ilaahay horeysiyo in shakartum wa amantum hadaa ay mahadnaqdeen nicmadii aan idin siiyay ka mahadnaqdeen rumayseena maxaan ku falaya cadaabkiina hadii labada la waayo cadaabkiinu waa garway in la idin cadaaba alla marka la wuxuu xusayaa dadka istaahila deeqda ilaahay inay yihiin dadka u mahadnaqa kuwa deeqda ilaahay ku mahadnaqa ayaa istaahila inuu ilaahay deeqdiisa siiyo wakadalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu haula'i manna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi'a'lama bishakirin dad baa muuminiintii wax ka sheego markaas ay yiraahdeen ma kuwan uu ilaahay diin iyo deeq siiyay iskaba hooseeya masaakiinta ah annaguna madax waaweyn baanuna diinta iyo deeqdu ilaahay bixinaya dadka iyaga sharafta la muusiyo qaar reer maka abaacaynkaay ilaahay baa u jawaabay wuxuu alaysa Allahu bi'a'lama bishakirin ilaahay miyaan ogeyn kuwa mahadnaqaya ee nicmadiisa mudan
kuwaasaan kibrin oo mahadnaqay oo nicmadiisii ilaahay uu ka bilaabay subxaanahu wa tacaala. waa sababun min asbaabi libtilaa. imtixaanadaynu marayno adduunyada markaynu joogno waxyaabuu ilaahay inagu tijaabinayo shukrigaa ka mid a. cadiyadiibuu bixinayaa bal in la mahadnaqay iyo in kale. inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran. jidkiiba inaa khalaqna alinsana min nutfatin amshaajin nabtali waanu imtixaanaynaabaa ilahay qofkii markaan abuureen ifkani soo saaray imtixaan buu maraya. imtixaanka wuxuu ku imtixaanaya imaa shaakiran wa imaa kafuuran. labadaa midun buu noqonaya. ama ilaahay waad mahad baad leedahay buu ohanaya, mahadda ilaahay buu badinaya. ama ilaahay buu ku gacan sayraya oo odhanaya maxaadna siisay iyo maxaan helayba, oo ilaahay nicmadiisa saloogaya. waxaa ilaahay uu tilmaamay nicmooyinka aynu eegaynaa inaanay noqonin keliya tan aynu helayna adduunka iyo anfaca iyo arsaaqadda, laakiin nicmooyin aada u ballaadhan ayaa aynu haysanaayo aada u weyn. oo ilaahayna markuu ka warramaya uhi waa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. maba koobi kartaan haddaad nicmadiisa tirisaan. markaa qur-aanku kolkuu nicmada ka warramaya indhaheenna kolba dhan buu ujeediyaa. wuxuu ka dhigay rabbi awoodaha iyo aqoonta wuxuuna siiyey faraha badan ayaa wuxuu ka dhigay wax ilaahay loogu mahadnaqo. wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'idata lacalakum tashkuruun. suuratu naxl. caloosha hooyadin baa ilaahay idinku abuuray idinkoon dareemayaalna lahayn, aqoonna lahayn, awood iyo adduuntoona lahayn. intiiba ilaahay u idisiiye. waxaanan doonayaa inaad mahadnaqdaan buu ilahay. waa nicmat lkhalq, nicmadii khalqiga, awoodda iyo aqoonta labadaaba iga mahadnaqa buu ilaahay leeyay. wuxuu tilmaamay cidda mahadnaqaysa inay tahay cidda ilaahay keligii caabudo. ashaakir huwa alcaabud, cibaadu ku sifaysan yahay. washkuru llaha in kuntum iyaahu tacbuduun. haddaa ilaahay caabudaysaan oo cibaada jirto mahad baan idinka sugayaabaa ilahay u leeyay subxaanah. waxaynu uga jeednaa sawirka qur-aanku uu ka bixinaya baabka inoo yaala. cibaadooyinka salaada iyo lamid ahee ay na sugayaan ayuu ka mid yahay baabkaas. oo dadkuna meel shishe ayay ku ku faruur xidhan yihiinoo inay nicmada ilaahay afdhigaan in badan baa weydaarsanba. ambiyada 5 baa ugu fadli badan la yidhaahda ululcasm. nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo muusa iyo nebi maxamed iyo calayhi salaatu wasalaam, nebi ciise. markuu ilaahay ammaanayo wuxuu ku ammaanaa inay ahaayeen dad mahadnaqi jiray. waayo sifooyinka rususha ilaahay uu ku ammaanaa waa sifooyinka ugu qaalisan. duriyata man xamalnaa maca nuuxin inahu kaana cabdan shakuura. ummad baa ilaahay umana sheeganaya wuxuu ihi nebi nuux baa ka farcanta. wuxuuna ahaa mid ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacaala. qiyaamahana markay martida u noqonayaan rususha ummadaha ee kulaylku ku bato ummaduhu markay rususha baryayaan ee kulaylku ku batay leeyihin ilaahay nooga shafaaco qaad. nuux kolkooda yimaadaan waxay leeyihiin ilaahay nooga ergeen. waqad samaaka allahu cabdan shakuura. adduunyadii ilaahay kitaabkiisa wuxuu kugu magacaabay addoon mahadnaqee belergada isu taag. nebi ibraahim qur-aanku aada buu sifeeyey. sifooyinkiisa waxaa ka mid a shaakiran liancumihi ijtabaah. ilaahay nicmooyinkiisu ku mahadnaqi jirayo markaasaa ilaahayna uu doortay. halkaa kacbada ayuu ugu yimi inantii uu sodohda u ahaa ee inankiisii ismaaciil uu guursaday isagoo ka maqan. u waraystay dayray kasii daysay iyo maxeero. maxaa qabtaana ku nooshi in yaroo hilib iyo biyaanu ku noolay iyo balaa iyo baas iyo haraad iyo qaxar. way dayris, macnaha way cabad. kadibna fariin buu u farayoo wuxuu yihi waxaad ku tidhaahdaa ismaaciil markuu kuu yimaado salaan iga gaarsii, albaabka fayaaradana iska bedel. intii kolkay u sheegtay wuxuu yihi inanay fayaaraddu odaygu sheegayay, odaygu aabbahaybu ahaa maad garanayn. fayaaraddaa uu sheegayeyna waa adiga. halka lagaa raacayna waa shukri la-aanta. lidaalik baa ruuxii dumarka ahayd markaanay qaanacad lahayn qoysku dhisnaan kari maayo. wuxuu ilaahay siiye wuxuu ninku siiyaba waa inay qaanacaad ku yeelatay. taa tii ka dambaysay markii uu soo booqdayna way baraare iyo barwaaqo ayay sheegtay. waa fiicanna alxamdu lilah, ilaahay baa naga wanaagsan, wax waliba waa khayr. igu salaalo albaabka fayaaradiisa dahadhow.
halkaa waxaad ka arki karaysa macnaha wuxuu tilmaamayaa midina waxay haysaa dhaqankoodii shaakiran liancumi dhaqankii ambiyada iyo saalixiinta ku taagantay midina way ka dhacday tani lama jaan qaadaysa u arkaya qoyska tanna way la noolaan karaysa alqanaaca nabi muuse calayhi salaam baa ilaahay umana sheegtay yaa muusa inii istafaytuka cala annaasi birisaalati wa bikalaami fakud maa aataytuka wakun min ashaakiriin diin iyo deeqba iyo doorashaba waan ku siiyey diin baan ku siiyey deeqdayda way badantay waa anigaa dadka kaa doortay wakun min ashaakiriin kuwa mahadnaqayano waa ambiyadiisa ilaahay uu ku sifaynaya wahiya awalu wasiyati lilinsaani cindamaa caqala qofku marka u horeeyo caqli yeesho waxyaabaha in ubadka ku tababaraynay ka mid tahy inaanay gaalna sii eegin hay-adna sii eegin mid kaloo wax dheerna daba cararin laakiin ay iimaansadaan dalkooda iyo dadkooda waxyaabaha aynu ku tarbiyaynayna ubadkay ka mid tahy inaan cidiba isaga waxba dheerayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir ilaahay baa qofkii bani aadamkaa markuu qaangaadho la hadlo wuxuu leeyahay waxaan u mahadnaqdaa ugu horeynba aniga iyo labadii ku dhalay nicmada ilaahay hadduu dafiro nicmada waalidkana dafiro dad kalena waxba u qori maayo waxyaabaha aynu ilaahay ugu mahadnaqayna waxaa ugu sii qiimo badan biyaha uu inoo shubay oo aad dareemi karayso baahida insaanku u qabo bal ilaahay wuxuu ka dhigay qur-aanka dhexdiisa biyuhu inay noloshiiba yihiin wajacalnaa min almaai kulla shayin xay ahlu naarkuna ahlu jannaha wixii ugu horreeyey ka codsadeen waxau ahaa an afiiduu calayna min almaa war biyo na soo gaadhsiiya balaayaa nagu karaysee biyo na soo gaadhsiiya jannadana ilaahay deeqda ugu weyn markuu ka warramayu mu'miniinta siiyey biyuhu kow ka dhigay waxaa runtii qur-aankana ilaahay inoogu mano sheegtay biyaha qiimaha ay leeyihin afara'aytum almaaa aladii tashrabuun aantum anzaltumuuhu min almusn am naxnu lmunziluun biyaha cabaysaan ka warrama maanaa soo dejiyey mise maanaa daruuraha ka keeno ka soo dejiyey mise idinka haddaan qaraar ka dhigo xaggee biyo u raadsan lahayd